haddii aad ka mid tahay dadka leh fanaxda, muuqaalkan aad ayuu ku anfici doonaa oo waxaa kugu soo gudbi doonaa qaababka kala duwan ee aad iskaga baabi'i kartid fanaxda. balse intuusan muuqaalka bilaabanin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada leh fanaxda si ayagana iskaga baabi'iyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو دمان صاحبيال magacaygu waa Dr. CK waxaan ahay dhakhtar ilkood. muuqaalkan waxaan jeclaystay inaan kugu soo gudbiyo waxa caafimaad ahaan loo yaqaan diastema oo ah fanaxda. run ahaantii fanaxda wadamo qaar waxaa loogu aqoonsan yahay inay qurux tahay, wadamo qaarna waxaa loogu aqoonsan yahay inay foolxumo tahay oo guud ahaan waa laga neceb yahay. wadamada laga jecel yahay ama loogu aqoonsan yahay inay qurux tahay waxaa kamid ah wadamada East Africa loo yaqaan. sidoo kale qaaradaha Europe iyo Asia waa laga neceb yahay fanaxda oo waxa loogu aqoonsan yahay sida cudurka kale loo neceb yahay oo qofka haduu fanax leeyahay si degdeg ayuu iskaga baabi'iyaa. sidoo kale dadka way ku kala duwan yihiin fanaxda oo waxaa jiro dad jecel fanaxda iyo dad neceb. waxaa jiro hal ku dhig aan dhagteeda ku maqlay oo loo yaqaan fanaxley facid karoon. haddii aan qaldanahay qaybta hoose faalada igu sax waxa ula jeedaa dadka qaar way ku kala duwan yihiin fanaxda oo waxaa jiro dad fanaxdooda ku faano iyo sidoo kale dad fanaxdooda neceb oo jecel inay iska baabi'iyaan. balse muuqaalka waxaan fiici doonaa dadka neceb fanaxda qaababka kala duwan ee iskaga baabi'i karaan fanaxdooda. anigoo kugu dheereynayna muuqaalka waxaan jeclaan lahaa inaan si toos ah ugu gudbo qaababka aad iskaga baabi'i kartid fanaxda. fanaxda waxaad iskaga baabi'i kartaa number 1 inaad ilkahaaga ku samaysatid wax loo yaqaan veneers. veneers waa ilka dhawaan adduunka lagu soo kordhiyay oo aad u qurux badan, waana lakab loogu talagalay in iliga lagu dul dhajiyo. veneers ka qaab noocan ay u egyihiin run ahaantii aad ay u qurux badan yihiin, waana kugula talin lahaa haddii aad jeclaan lahayd inaad fanaxda iska baabi'isid inaad ilkaha noocan ah aad xiratid. sidoo kale qaabka kale aad iskaga baabi'i kartid fanaxda waxaa kamid ah number 2 inaad samaysatid wax loo yaqaan orthodontic braces oo ah biraha loogu talagalay in ilkaha lagu qurxiyo. runtii biraha ilkaha lagu xiro laba qaybood ay u qaybsamaan, nooc visible ah oo qaybta dusha laga xirto iyo qayb gudaha laga xirto oo loo yaqaan lingual braces. labadaba waa samaysan kartaa, waxay ku xiran tahay midka uu ku xiro dhakhtarkaaga. runtii muddada ay ku xirnaa doonto biraha ilkahaasna waxay ku xirnaa doontaa awoodda ay lafta ilkahaada ay leedahay iyo sidoo kale inta ay la eg tahay fanaxdaada. oo haddii fanaxdaada ay weyn tahay waxaa laga yaabaa muddo badan inay kugu qaadato. qiyaas ahaan aniga ahaan waxaan ku qiyaas lahay muddo 6 bilood ilaa 12 bilood inay kugu qaadanayso inay fanaxda ka xiranto. waa laga yaabaa muddadaas ka yar inay fanaxda iskaga xirtid, balse qiyaas ahaan 6 bilood ilaa 12 bilood ayaa laga yaabaa inay kugu qaadato. sidoo kale qaabka kale aad iskaga baabi'i kartid fanaxda waxaa kamid ah number 3 inaad samaysatid wax loo yaqaan dental restoration oo ah buuxin. buuxinta ilkaha run ahaantii waxaa loo sameeyaa in lagu buuxiyo space-ka loogu talagalay ama space-ka u dhaxeeya labada ilkood. marka labadaada ilkood haddii fanax ay leeyihiin ama space ay leeyihiin, buuxin yar ayaa loo sameyn karaa oo waxaa lagu buuxinayaa maado loo yaqaan composite oo iligaaga u eg. run ahaantii saddexdaas qaab oo kala duwan ayaa iskaga baabi'i kartaa fanaxda. waxaa jiro saaxiibo jecel inay samaystaan fanax oo u haystaan inay qurux ay tahay. run ahaantii anama kula talin lahayn inay samaystaan fanax sababtoo ah waxay u nuglaan doonaan cudurro badan sida cudurrada ku dhaca ciridka iyo sidoo kale suuska ama guud ahaanba cudurrada ku dhaca ilkaha. marka haddii ilkahaadii isku dhagsan yihiin oo wax spaces ay lahayn talahan kuma sii lahayn inaad ilkahaada fanax aad doonatid oo lugahaada ayaad ku raadsatay cudurro iyo dhibaatooyin kale taba. anigoo kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan, fadlan si aad u heshid fariimo caafimaad oo joogto ah ku soo biir Facebook page-kayga oo follow iyo like dheh. sidoo kale ku soo biir YouTube channel-kayga oo subscribe saar si aad u heshid fariimo caafimaad oo joogto ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.